maanta mar raba inaan kaga sheekeeyo ciidamadii Soomaaliya ee militariga gaarka ahaa ee danab ee uu Mareykanku ku tababaray mushaarka isagu siin jiray iyo qalabeentooda iyo sidoo kale daryeelkooda ayaa mushaarkii laga goostay mushaarkii hore ay u sheegay Mareykanka inuu goyn doono madaxweynahooda cusub Donald Trump lacagaha uu bixiyo ee aan faa'iido dalkiisa u lahayn wadamo badan ayuu ka goostay dhowr wadan ayuu u soo reebay taakuladii uu siin jiray oo ay ka mid tahay Masar iyo sidoo kale Israa'iil hadda Soomaaliya waa laga joojiyay wixii lacag ah oo Mareykanka heli jirtay oo ama darab ay heli jireen ama hay'adaha kalantood ee xalana degan oo Mareykanku targeeda ka qaata ay heli jireen dhamaantood waa laga jirtay hadda wixii ka dambeeyay ciidamada Soomaaliya saad wixii ah iyo wixii taakule ciidan ah iyo mushaaraad ah iyo wax kasta oo Mareykanka uga imaan jiray ma jirto waqtigan wixii ka dambeeyay in ay heli doonaan laakiin hadii wada hadal iyo dadaal la galo waa ay heli doonaan ama waa ay way doonaan waa qorshe kale laakiin waxa rabaa inaan kula wadaago 6 qodob oo Soomaaliya badbaado ah dadka Soomaaliyeedna ay qasab ku tahay in ayaga liqaan oo ay qaataan si kasta oo ay ugu qaraar tahay ama ay ugu adagta si looga baxo dhibaatooyinka wadanka Soomaaliya ka jiro maanta ciidamadii Soomaaliya qaar kamid ah mushaaraadkii iyo kabkii ay heli jireen waa la gooyay maalmo kadib ama bilooyin kadibna waxa bixi doono ciidamada kale ee ajnabiga ah sidoo kale waxa istaagi doono kabka laga helo reer galbeedka kale maalin kastana naafo ayaad u ahaan doontaa dhaqaalo iyo gargaar dawlad shisheeye iyo shacab shisheeye aan ka helayno maalin kasta waa loo jiisi doonaa waana loo dhibanaan doonaa madaxda Soomaalidan waxay ahaan doonaan kuwa aan u madax banaaneen go'aanadooda oo u hoos fariista madaxweynayaal iyo dawlado kale si looga baxo dhammaan dhibaatooyinkaas 6 qodob ayaan u arkaa ama loo arkaa inay Soomaaliya u tahay masaalix badbaado iyo horumarka dalka Soomaaliya qodobka ugu horeeya waxa waaye in dadka Soomaaliyeed ay dhistaan iyo dawladda Soomaaliyeed ay dhisaan ciidan qaranka Soomaaliya oo leeyahay oo ilaalin kara xuduudahooda bariga iyo badda iyo hawada in la helo ciidan Soomaaliyeed oo meel kasta oo dalka Soomaaliya ayaga ilaalin kara amniga iyo mas'uuliyadda wadanka Soomaaliya qaadan kara iyo in la helo dhaqaalo shacabka Soomaaliyeed ayaga ay baxsadaan oo aan laga sugin reer galbeed oo aan laga sugin Mareykan oo aan laga sugin Carab iyo ajaanib kalaba dadka Soomaaliyeed inay jeebkooda furaan canshuur kasta oo dawladda Soomaaliya ay leedahay ay bixiyaan taakula kasta iyo garab istaag oo dalka iyo dadka Soomaaliya lagu badbaadi karana ay baxsadaan waa dad Soomaaliyeed oo sadaqo badan oo shaqooyin haysta oo beeli kara dawladooda gaarsiin kara inaysan u baahanin dawlad shisheeye ayadana waa qodobka labaad ee muhiimka ah qodobka saddexaad in dawladda Soomaaliya ay la timaado qorshe dadka Soomaaliyeed kalsooni lagu gelin karo oo musuqmaasuqa iyo eexda looga fogaan karo si loo helo taageerada bulshada waa inay helaan kalsooni meesha ay wax ku darsanayaan oo ay dhaqaalaha ku bixinayaan inay noqoto meel aamin ah oo wixii ay gashadeen dalkooda lagu celinayo oo aan guri ka dhisanayn oo aan Kenya looga dhisanayn Turkiga looga dhisanayn xamar apartmentiyo iyo baawur proofi ah loogu soconin qodobka kale ee muhiimka ah waxa weeye in la helo sharci xakameeyo awoodda baaxadda leh ee maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta qaar ee Soomaalida ee sharci qabtaba jirin ee ciidamo iska sameystay xaafada iska ootay oo cirabaan sameeya dawladdii dhexe aqoonsaneen awaamirteeda shaqeyneen dawladaha ajnabiga ah maalinba wadan u tagay oo la heshiinaya ayadana sumcaddii Soomaaliya iyo madax banaanidii dalkan ay dhibaato ku tahay oo maalin Imaaraad wacanay maalin Itoobiya wacanay maalin Kenya wacanay waa dhibaato kale oo ayadana xal u baahan Soomaaliya in laga qabto in la helo hoggaan Soomaaliyeed oo aan kursiga ku waanleen kursi jecel lahayn dhaqaale doon ahayn ama ugu yaraan dastuurka oo xadeeyo qofka inta jeer oo madaxweyne noqon karo qofka xildhibaan ah wasiir uusan noqon karin qofkii wasiir ay uusan xildhibaan noqon karin dhaqaalaha markaas qofka uu haysto in la xisaabiyo ugu yaraan in la helo wax dadka Soomaaliya iyo dalka Soomaaliya lagu badbaadin karo oo laga baxo madaxweyne kasta markuu yimaado kursiga inuu isaga dhago nin kale kursiga uga dhago ama uga dabalaalaado kadibna lagu dagaalamo dalkii iyo dhaqaalihii iyo bulshadiina halkaas ay ku baaba'aan ayadana waa mushkilad kale oo Soomaaliya haysato in la helo shacab Soomaaliyeed oo dawladooda la xisaabtami kara oo madaxweynaha dooran yiraahdo qowl 2-3 noo ballan qaaday xagee ku marayaan heshiisyadan mugdiga ah la galayo iyo mushkiladaha kale ee wadanka Soomaaliya ka jira in la helo shacab dalka leh oo dalku ka maqan yahay oo dawladdu leh oo dawladdu la xisaabtami kara
haddii aan qodobadaas la helin soomaaliya waxay ku jirtaa xaalad adag oo dhib badan soomaaliya ay ku sii jiri doonto waxaa laga cabsi qabaa Mareykan hadda wuxuu joojiyay taageeradii ciidamadii Trump iyo qaybo kale oo ka mid ah ciidamada Soomaaliya oo taakula la siin jiray Amazon oo atmi isku bedeshay ayuusum hadda marayso oo dhaqaalihii loo laayahay ay laftirkoodii wali aan howlgalkiisa sax u bilaabin ayagana biri waa bixi doonaan oo laguma tashan karo haddii maanta ciidamo baxay iyo dhibaatadan waa sii jiri doontaa xaaladan dhibaatada ah weligeed way taagnaan doontaa ilaa la helo dad Soomaaliyeed oo dawladnimadooda dhaqaale ku bixiyo oo ka fakara oo la xisaabtamo haddii aan la helin dalka wuxuu ku jiri doonaa xaalad halis waxaana dhici karto sidii ka dhacday Afghanistan oo ay nimankii la wareegeen oo Suuriya ka dhacday wadamo kalena waa ka dhici doontaa waliba annaga kuwaas waa ka riski iyo halis badanna al-shabaab lamid maaha kuwaas oo kale nimankaas waxaa lagu tilmaamaa niman xildoon inay ahaayeen dabeecadooda dhaqankoodii bedeleen dad laaynin oo wax un ka bedeleen wixii hore ugu dhaqmi jireen annaga niman waxaa noo jooga dadka iyo dalka cuni doona haddii aan hadda dadka Soomaaliyeed tashan muqdisho oo noori doonto quruxdaana ma jiri doonto baawar lagu socon doono adduunka loo safri doono wadan adduunka go'oonsan ayay ahaan doontaa Soomaaliya xataa hadday dhinac ka soo galaan kuwa dakanaha qaba ma carari doonaan hadda ayay fursad furan tahay dadka Soomaaliyeed inay dawladooda la xisaabtamaan dhaqaale geliyaan dalkoodana dhistaan ciidana loo helo aad iyo aad u mahadsantiin amaana Allah